ku dhawaad 30 qoys ayaa la gaarsiiyay deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen walaalo Soomaaliyeed. deeqdan ayaa loo soo wakiishay Ismaan Cabdikaafi Guleed oo ka mid ah golaha abwaanada Soomaaliyeed. dadka deeqda la gaarsiiyay ayaa isugu jiray dad cuuryaama iyo sidoo kale dad danyar ah. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan lacageed. walaalayaal waxaan mahad iskale Ilaahay marka labaad iskale dadkii oo naagta noo soo dhiibay meesha ka soo qaadeen iyo meesha ka soo bixiyeen wax ka khayr badan Allah ugu baxsho jannadana Allah ugu laabaan dhiiraan sintiin dadkii sadaqada noo keenay sadaqada Allah nagu keenay dadkii waxaan noo soo dhiibay lacagtan waa mahaysan yihiin khayr Allah siiyo waan helnay inayna khayr Allah siiyo meesha ka soo qaaday khayr kale Allah soo geliyo meesha ka soo qaaday khayr kale Allah soo geliyo annaguna waa ku farxadan ku nahay kooxda muslimiinta oo isku gurmatay oo walaalahayna oo soo gaarsiday deeqdan lacagta ruuxii ka soo qaaday iyo ruuxii soo qaaday ajir min ajriina loo kaan ajirkii kaas u sugnaaday laga soo qaaday iyo mid ka qaaday ajirka u sugan isla meel ayuu imaanayaa ruux nusqaan ajirkiisa ajir kale loogama nusqaamiyo ayka kuwii soo qaaday Ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa ka khayr badan Allah inuu soo geliyo. cabdinaasir daahir cilmi iyo sidoo kale Maryam Cabdulla Xasan ayaa iyana ugu mahad celiyay deeqda lacageed ay soo gaarsiisay Ismaan Cabdikaafi Guleed dadkii ay saameynta ku yeelatay fatahaadii webiga Shabeelle dhawaan ka geystay magaalada Beledweyne. waan ku gaarsiinay dad masaakiina deeq lacageed oo ka timiday walaalo khayr jecel oo soo sadaqaystay oo jaariyada USA waxaa soo wakiisheen walaashii Ismaan oo iyadana safarkii labaad Beledweyne mar kale ku soo laabatay maantay taasoo gaarsiisay 30 qoys oo runtii ka koobnaay dadka magaalada aad ugu liito oo bulshada saddexdeeda qaybood ku ugu liito ka koobnaay sida agoontii iyo waayeelkii iyo curyaankii sidoo kale dadkaas waxa ka kala imaadeen ama laga kala keenay afarta xaafadood magaalada Beledweyne runtii maadaama xaaladii fatahaadii cusle dadkan saameyn weyn ku yeelatay insha Allah taala deeqihii lacageed loo dadkii walaalaha soo sadaqaystay la siiyay waxay ka kaabi doonaan insha Allah meel fiican uga soo bixi doonaan ama ay horseed u noqon doonaan dadkaas inay waxyaabihii dhibaatadii kale soo gaartay inay ka caawiyaan ayagana waxa leeyahay dadkii khayrkan soo dhiibtay rabbi ajri xasanaad alla soo koobi karo Ilaahay ka siiyo. maanta waxaanu joognaa qaybtii labaad ama safarkii labaad ee Ismaan nagu soo gaarsiisay deeq lacageed oo ay soo gaarsiiyeen dad walaalaheena oo maxay tahay iyadoo u soo wakiishay deeqdaas lacageed oo la gaarsiiyay dad ka kooban 3 qaybood oo ka kooban cuuryaamiintii qayb ka mid ah iyo agoontii qayb ka mid ah iyo dadkii waayeelada ahay Ismaan waxaan leeyahay ajir xasanaad Allah ka siiyo adiga socdaalkaagii safarkaagii dadka walaalaheena soo sadaqaystay lacagtan waxaan leeyahay waa mahadsantiin jazaakumullahu khayr aan rajeynaa inaad mar kale walaalihiin soo caawin doontaan insha Allah walaalaha wax la siiyeen waxaan ka rajeynayaa in si qalbi maxay tahay ugu duceeyaan dadkii soo sadaqaystay lacagtaasi. ugu dambeyn waxaa ka hadashay Ismaan Cabdikaafi Guleed iyadoona sheegtay in deeqdan lacageed ay gaarsiisay dadkii lagu talagalay. waxaan mahad ballaaran iskale Alle subhanahu wa ta'ala oo si nabad ah ugu soo dhameeyay barnaamijkii aan wadnay waxaan mahad labaad iskale dadkii lacagtan ii soo wakiishay waxaan mahad saddexaad iskale guddigii tabarucaadka magaalada Beledweyne oo si habsami leh ila shaqeynayay waxa farxad ii ah inaan maanta aan la kulmay dadkii loogu talagalay dad ii geynaya ama guryahoodii soo tusan anagu indhahayga ku soo wada arkay sadwada arkayseen lacagihii waan siinayay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u mahad celinayaa dadkii lacagta ii soo dhiibtay waxaan rajeynayaa lacagtadii soo dhiibateen inaad indhihiina ku daawanayseen dadkii la siinayay oo mudnaa sida curyaanimadii dadkii lowga ahaa oo maaragtay loogu talagalay kulay sidaad iigu soo dhiibateen baan anna u gaarsiiyay. Abdulwaaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne.